dagaal maya doorashaha waxa uu ahaa halkudhigga isku soo bax boqolaal ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo ka kala yimid gobolada dalka iyo caasimadda ay saaka ka dhigeen magaalada Muqdisho. haweenka ayaa sheegay inaysan aqbali doonin in mar kale uu ka dhaco dagaal Soomaaliya ayagoo baaq u diray hogaamiyayaasha dalka kaasoo ah in doorashadu ay ku dhacdo jawi nabdoon. qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo ka hadlay kulankan isku soo baxa ayaa sheegay in haweenka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa ugu badan ee markasta dagaalka saameynta ugu badan oo ku reebo. annaka dagaal ma rabno, nabadaan rabnaa, ilmaha dhamaahay annaka dhalnay, annaka u shaqeyno, raggi ma shaqeeyo, haweenka shaqeeyo, annaka tacabkayna tacab qasaaraha ka dhiginina, tacabkayna tacab qasaaraha ka dhiginina. naga dhaafa dagaal ma rabno, waa soo baxnay, guriga kuma jirno, meesha tagtiina idinkugu imaahayna. diiririteen idinku waa ku diiririteen, idinku waa ku diiririteen, dumarka ma u day kartid, idinku waa ku diiririteen, dumarka ma u day kartid. yaana loo horseedin dhibaato kale, yaana loo horseedin dibdhac, yaana laga leeyna caruurteena, yaana jidgooyin lagu sameeyay, yaana la baabi'in. ilaahay haday ka cabsanayaan waa inay go'aan ka qaataan in doorashada la aado, doorashada la aado, dagaal hala joojiyo, yaana loo horseedin dagaal, wadankan dib yaa loo celinin, yaa hantideena la burburinin, yaa caruurteena la leeynin. marka waxaan leeyahay ragow dharka hanaga dhigina, dharka nagu celiya, na xishmeeya, dagaalka ma rabna annaga doorashaan diyaar u nahay. doorashadaas qofkii calafkiisa siiyo ha qaato, waa la garab taagaya. waxaan leenahay no dagaal, no dagaal, marnaba dagaal ma yeelayno, doorashada ha loo dareero, taasaana wada anfacdo. annaga waa inaan miiska wada hadalka ka qayb galno. maamul goboleed walba waa inuu leeyahay gabar la fariisato miiska, talooyinka noo goyso oo ma taqaanaa aan wax ka ogaano waxyaabaha amba talooyinka dalka. aniga haweenka Soomaaliyeed waxaan ku guubaabi lahay ragga qoryaha ay qaateen, annaga qori ma qaadan karno, laakiin waa inaan afkeena qori ahaado, saacad walbana afkeena uu qori dhashiika ka baxo. gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batula Sheekh Axmed Gaballe ayaa sheegtay in haweenka Soomaaliyeed aysan aqbali doonin in dagaal uu ka dhaco Soomaaliya isla markaana ay soo dhaweynayaan doorasho in laga qabto Soomaaliya. dagaal ma galin, dalkeena in la burburiyo ma galin, dadkeena in la laayo ma galin, in wadankeenu baabaa ma galin, caruurteena laga baabi'iyo ma galin, dowladnimada in la baabi'iyo ma galin, qarannimada in la burburiyo ma galin, calanka dhulka in lagu jiido mar kale ma galin. dhulka meel lagu qaxaa ma jirto, gabdhuhu waa ka hadleen. waxaan rabnaa doorashada in loo dareero, Soomaaliya inay hore u socoto, in dalka la badbaadiyo, in ummadda la badbaadiyo, in hooyooyinka aan mar dambe idin laga keenin oo aan lagu barakicin dhulkooda oo aysan baahi ugu dhiman geedaha hoostooda. Sadex Cabdi Taaliil, Universal TV, Muqdisho.